بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبالله نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan waxaan salaamayaa bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta ay ku nooshahay. Waan salaamayaa magacaygu waa Daahir Xasan Macalin Ibraahim ama Dr. Daahir Xasan Macalin Ibraahim waye. kulli maanta waxaan ka hadli doonaa barnaamij la yiraahdo gaarida nabad waarta iyo nolol wanaagsan. nabad waarta iyo nolol wanaagsan barnaamijkeeni maanta waye. عاديا إن شاء الله تعالى waxyaabo kale dib baynu kaga darsan doonaa insha Allah, laakiin maanta waxaanu ka hadli doonaa focus ka saari doonaa wax la yiraahdo gaarida nabad waarta iyo nolol wanaagsan. horta markaan isniraahno nolol iyo nabad way wada socdaa, nabad la'aan nolol ma jirayso asal ahaanba. nabad maxaa la yiraahdaa? nabadu waa xasilooni ama amni, warwar la'aan, qofka aan qalab iyo warwar aan ku jirin oo ku socdo habeenkii una soo toosa. nolol wanaagsan markaas ay imaanaysaa. qofka laabtiisa uu degantay, wajigiisa uu degan yahay, baa waxaa dhacaysa in nolol wanaagsan uu ku noolaado. taana waxaa keeni kara nabadda. haddaba su'aasha meesha taallaa waxay noqonaysaa, sidee baan ku gaari karnaa ama aynu ku heli karnaa nabad waarta iyo nolol wanaagsan? okay, qodob koowaad, qodob fara badan baa jira, laakiin waxaan ku soo qaadan qodobada kooban ee ku soo qaadan doonaa insha Allah. qodob koowaad wuxuu noqonayaa alle inaan u hogaansanaano kalsooni sax ah aan Allah subhanahu wa ta'ala ku qabno. u hogaansanaanta alle waxay dhalin kartaa inaynu nabad waarta helno, sidoo kale inuu helno nolol wanaagsan inuu helno. waayo waarida aad ku waaraysid nabadda waxay ku xiran tahay in Allah subhanahu wa ta'ala aad ka baqdo. waayo Allah subhanahu wa ta'ala markaad ka baqdo baa nolol wanaagsan aad helaysaa. waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa wuxuu ku leeyahay, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. qofkii Ilaahay ka baqo ka cabsooda ayaa makhraj iyo faraj, haddii kurbahaysay, haddii warwar ku jiray, haddii baqdin ku jiray, Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu siinayaa xasilooni waarta uu siinayaa. sidoo kale ayadaha Allah subhanahu wa ta'ala way farbadan yihiin, meelo fara badan buu Quraanka kaga hadlay. sidoo kale waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. haddii arrinay kugu cuslaato iyo culays ku soo wajaha, Allah subhanahu wa ta'ala dad ka baqdo, Ilaahay arrinka uu ku sahlayaa, wuuna ku fududeynaya. marka number koowaad oo ay noo tahay waarida nabad waarta iyo sidoo kale nolol wanaagsan waxay ku xiran tahay inaad Allah ka baqdo. waa Allah subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa wuxuu ku leeyahay, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. qofkii dhikriga Ilaahay ka jeesta, cabsida Allah subhanahu wa ta'ala ka taga, waxa weeye noloshiisa waxay noqonaysaa nolol ciriiri ku salaysan bay noqonaysaa. sidoo kale waxay noqonaysaa noloshiisa nolol oo sax ahayn bay noqonaysaa. qodobka labaad aynu ka heli karno nabad waarta iyo nolol wanaagsan aynu ka heli karno waxaa ka mid ah waxbarasho. inaynu wax barano oo bulshadeena wax barato. waayo inaad wax barataay waxay ku sahlaysaa in Allah subhanahu wa ta'ala aad ka cabsooto. waayo cabsida Allah laftigeeda waxay u baahan tahay barasho. qofka waxba aqoonin Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma garanayo qaabka loo caabudayo iyo sifada uu caabudayo iyo siyaabaha Allah subhanahu wa ta'ala ugu baahan yahay ma garanayo qofka. okay, Allah subhanahu wa ta'ala ujeedku ku abuuray horta muxuu ahaa? markaad ogaato oo sifooyinkii lagu abuuray iyo asbaabta lagu abuuray Allah subhanahu wa ta'ala sidaa ku sheegay, oo uu leeyahay, wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizq wama uridu an yut'imun. inaad Ilaahay aad ka baqdo oo aad caabudo oo caabudida xaqaad caabudo ayaad ku heli kartaa nolol wanaagsan iyo nabad waarta. halkaasaad ka heli kartaa. marka waxbaro, oo haddaad wax barato Allah subhanahu wa ta'ala waad aqoonsanaysaa, noloshaadiina way isbedelaysaa. waayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku leeyahay quraankiisa maxay, qul hal yastawi alladheena ya'lamuun
والذين لا يعلمون يعني ما يسميهين dadka Allah subhanahu wa ta'ala ka cabsooda iyo dadka yani cilmiga yaqaanade dadka cilmiga baranay ma sinna oo di shaqo iyo shaqo iyo isku malaha marka isla mar ahaanta waxa laga baahan yahay in Allah subhanahu wa ta'ala yani si aad uga cabsooto inaad wax barataa Allah subhanahu wa ta'ala saad u qiimeyso aad ma garanaysaa yani aad ugu cibaadaysato inaad Allah subhanahu wa ta'ala aad taqaani inaad wax baratay ku xirantay sidoo kale waxaanu ku heli karnaa nolol wanaagsan iyo nabad waarta waxaanu ka heli karnaa inaanu isu sabarno samirka shayga laga dhaxlo samirka yani qofkan sabrin waxa la yiraahdaa sidkiisa ma helo baa la yiraahdaa marka inaynu isu sabarno anagu dhixdeenu isu sabarno aynu isu dulqaadano baynu ku gaari karnaa aynu ku heli karnaa nabad waarta aynu ku heli karnaa nabad waarta aynu ku heli karnaa inaynu isu sabarno oo samirka la nimaano والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصبر ضياء أوله مر وآخره حلو يعني الصبر هو إثنين أول كي صبر قرار وي آدو قراري أو ديكو مرة دميو لكن مركب تنبيه حتى قاعدته وآد صمرته وآد مقرنيسا يعني شيء آدو آدونيسي مقرنيسا دي جاريجيسا challenges يدي باتوين أديكاور يمهدان عقبتها أديكاور يمهدان كفكر سيدا وجود لهي oo sabarkeeda dulqaadkeedana la kaalay hadii aad sabarto waxa ku kordhaya xasilooni badan baa ku kordhaysa marka sida darteed waxaanu doonaynaa samirka kamida si aan u helno nolol wanaagsan iyo nabad waarta samirka waa ka qayb sidoo kale waxa kale ka qayb ah yani inaynu sameeyno wax la yiraahdo inay ku timaado midnimo inaynu mid ahaano way ku jirtaa meesha iyaduna يعني قيب بكتهاي يعني إن نجارنا نبض وارد منما بالشدة إن مدوبان بالشدة إن مدودو الاتحاد قوة يعني إن مدوبنا نسآمنه وحي قيب كتهاي إن نهلنا نبض وارد يصدق عليه يعني نلال ونحسن بينه هي كرنا إن نسآمنه ويشرتا ومش بيكشرتا إن مدوبنا مش بيكشرتا إسلام رهان تاوحوي الاتحاد قوة بالغ هذا من لماذا أبودي نصيصة كينا قلدان إنه قبنا كيني مقرنسا صحنا إنه ديرجينه تاس إنه كهرينا ولكن من لماذا تها باينوجو لمن كريسة صدق الواحد جتوح لا يرهدو يعني ودانيات يعني هدان دونينه إن مقرنسا يعني نلال ونحسن ينبض وارتا إنه نهلنا هدان دونين وحلقات دونية أما نقلت دونية إنه نكونه مواطنين طبعا مواطن كوائي مواطن وحلا يرهدا قف كستا وداني ميشو كل شيء كبرباري اوكي ودي هلكا وكلسو اكادي ونمعدي خيراتك الله سبحانه وتعالى دغانك سوق الله ديستay ku dhex noolaa kaasa waxa la yiraahdaa muwaadin sidoo kale waxa la yiraahdaa shakhsi kasta oo wadankiisa xumaha u diidaya xumaha aan u ogolayn oo wanaag kaliya u ogol oo wanaag ku dhiirgelinaya kaasa la yiraahdaa wadani waxa la yiraahdaa waa qofka difaacaya dalkiisa iyo dadkiisa difaacaya muwaadin waxa la yiraahdaa waa shakhsiga kala soo baxaya khayraadka iyo nicmada dalkiisa dhexyaala aaminsan kuna kalsoon okay sidoo kale markaan leenahay wadani waxa weeye wadanigu waa sida ruuxda oo kale weeye يعني مواطن كل شيء جيو ومودني كل شيء جيو وصدا يعني شخص بني آدم كحقوق كوبيا بالير هذا روح يجسد كوبي جد يروح كوبي هاي يروح كوبي هذه الروح ضمان طفقة يكب حضور جسد كيسي وحوم قباني وحنا ما ترى جسد كيسة وقل فوف عاذب وقنية مواطن كنا وصدا الروحي أو خليه وياهي وطنك هذه وطنك إنه فارجين إنه كب حنو إنه كجورنو إنه كتهريبنو إنه ملك لا إنه قبانو وحوي وطن في بابا أيا تكاي معايا marka waxaan doonaynaa si aynu magaranaysaa yani aan u noqono muwaadiniin dhab ah okay inaynu aaminsanaano kuna kala sooraano dalkeena aynu kala sooraano aynu ka helno yani waxyaabo fara badan aynu ka helno ilaahay nagu guulaysto maanta markaan nidhaahno wadankeena waxyaabo fara badan baynu ka helaynaa okay haddaba waxaa la doonayaa
إن نبض إنه هلنا يعني صدق عليه نبض هذا نقولنا إن ذلك أمن يسير إنه مقارنة إنه كوض شقينا ضله تبدأ إنه كوض شقينا أو مقارنة يعني ديرجلنا بالشيء إنه ديرجلنا أو دي هذيك أبو هرية وأنا أبوه وعيد ولبوا مقارنة ذلك كان أولادتي إن مقارنة حما إنه كذا إلى علينا إنه بالشيء إنه كديرجلنا سيدل كني أنا هر مرسل هاي sidoo kale wadanka inaadan beecin oo cid kale aadan ka beecin waayo hadad wadankaaga iibsato waxa weeye wadan kale iyo meel kale oo tagaysa ma jirto wadanka aad tagaysid inay ku martigeliyaan oo ma garanaysaa bariyaad la joogtid mooyaane bilaad la joogtid mooyaane sanadaad la joogtid mooyaane laakiin markasta dhulkaaga kan ah dhulkaagiina inaad ma garanaysaa u samarto u qaadato waa loo baahan yahay marka sidaa darteed waxaanu leenahay sida ninkii abwaankii carbeed ama shaacirkii carbeed oo ibn rumi la oran jiray ama abu hasan ninka la yiraahdo yani watanu laha waliya watan alaytu alla abi'ahu wa alla ara ghayri lahu dahra malika umirtu bihi sharh ash-shabab mun'ama بصحبة قوم أصبحوا في ذلك وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قطاف الشباب هنالك يعني وحن دوننا إن وطن كان مقارنة ساعدو أركتو إن أتدوب الله ذهي ونعد كلا إن الله وطنكو لما كان الله عد كستا مواطن ذلك هو الشيء ومقارنة ساعد وحلو كليه marka sida darteed horumarka wadankeeni inaan ku xisaabtano oo yani nabadiisa inaan ka shaqeyno amnigiisa inaan ka shaqeyno oo anagu laftigeena is garabsano aynu is aamino samir dulqaadna in muujino baa waxa laga helayaa yani nabad waarta iyo sidoo kale nolol wanaagsan aynu ka helaynaa marka barnaamijkan barnaamij lamida intaynu dib ugu kulmi doono waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgeliyo يعني برنامجyada noocan aanu soo wadnana waxaan idinka doonayaa inaad ma garanaysaa nagu dhiirigelisaan like-ta comment-ta iyo share-ka marka barnaamijkani markasta wuxuu ku bixi doonaa in barnaamijyo lamida barnaamij dhiirigelina wuxuu inoogu bixi doonaa yani baydhaba films channel buu inoogu bixi doonaa insha Allah hadduu ilaa yidhaahdo mar dhown waan idin soo tabin doonaa insha Allah barnaamijyadaasi barnaamijyo lamida salaamu alayhi calaykum wa rahmatullahi وبركاته.